الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أولا حفلة وناكسنا قروحة بدن isugu yimideen wajiyada quruxda badan ee aan ka rajeynayna insha Allah khayrka iyo barakada badan aan ka rajeynayno waxaan jecelahay xaq yaro Ilaahay nagu leeyahay inaan ka hadlo oo ku saabsan salaada walaalayaal waxa Ilaahay ugu sharafta badan ee uu siiyay waa islaamnimadana arkaanteeda waxa kamid ah salaada Ilaahay fawaid badan uu ku sheegay khasaa'ir badan qof ka tagana uu ku sheegay إلهي وحول أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. النبي عليه الصلاة والسلام وحال له صلاة أوك لما له صلاة أوك تأكيد وحويان ومراعاة كيفيتها شروط دي أركان دي كيفية دي شروط دي أركان دي واجبات صنيالك مباحي وقتك أنت وإن لي ما دوي عمل كاسي وعمل ككلية qofka faqiirka iyo qofka qaniga waajibka ku wada ah qof kasto muslima oo baaliq ah oo wax garan haya waajib ay salaadu ku tahay ama ha xanuunsanaado ama masaafir ha ahaado ama midaan cilmi badnayn ha ahaado laakiin acmaasha kala sida ma aha nabiga kaleey salaam saxaabi kamid uu tilmaamo wuxuu yiri salli qaa'iman fa illam tastadi' fa jalisan hada istaaga ku tukan wada fadhiga ku tuko aday galeeda ku garan haynaa waxay dhaheen culimaduna 5 marxaladood bay leedahay dhahan salaadu istaaga lagu tukan marka koobaad hadii la awoodi waayo fadhiga lagu tukan hadii la awoodi waayo jiifka lagu tukan hadii la awoodi waayo ishaara lagu tukan hadii la awoodi waayo qalbiga laga tukanaya qofka muuminka intuu amalkiisu daa'imsan yahay aqligiisu daa'imsan yahay salaadaasi waajib ay ku tahay kala duu qaan gaaray quraankuna wuxuu noo tilmaamay fawaid badan oo salaadu leedahay koow waxa kamid ah inna salata tanha 'ala al-fahsha'i wal munkar billahi leh salaadu waxay ka reebaysaa acmaasha xunxun qofku waa waxyaalaha inuu isku miisaaman la rabo salaadaadu haday ka reebi weydo waswaasu shaytaan ama qalbigaagu inuu wax kala ka fikiro ama inuu amalkaagu yaani waxaad ku garanaysaa inayna salaadaadu maqbuul ahayn qofku salaada markuu tukado mu'minimo maxdii quraanka iyo rasuulku oo ballan qaadeen alayhi salatu wasalaam nabigu sidoo tilmaamay وانا فرق قالدي ايغا u dhaxeeyo muslimiinta u dhaxeeyo nabiga kaleey sallallahu alayhi wasallam sidoo yiri الفرق بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر بالنبي عليه الصلاه والسلام فرقنا noo dhaxeeyo anaga gaalada waxa weeye salaada qofkii tukan waayna uu gaaloobay buuri gaalnimadaasi ama qofkaasi ha noqdo qof camdi intuu salaad uga tagay gaalnimo ah ama qof la ciqaabo oo loo dilo ha noqday waxa la naga rabaa marka salaada waynu tukanaa waxaan uga hadlayaa waxa weeye ma aha inayna tukan waan ognahay laakiin waxa u baahan tahay salaadu in la bartay u baahan tahay شروط الصلاة إن لا برتي وباهنتها صلاة واحد كوا أسيح باجر أدون ويسا قبيلتها تكور شرط الصلاة كوا أسيح ويسا كمله وحكم دخول الوقت وحكم سطر ساسة وباهنتها يعني أحكام هذا الله رب بيلاده وحنور ربنا مركب ما دام عملك كليا هينويه دائم كان كل يوم والليلة تلا ربه إن ينادوا إلى علنه جماعات كذا إن إلى علنه جماعات كذا إن إلى علنه إن إلى علنه وقت كذا إن إلى علنه وقت فضيلها inaan kayfiyadeeda ilaalino dhan walba inaynu iska dhisnaa loo baahan yahay waxyaalaha adduunyada ah walaalayaal qofku ilaa uu barto oo uu ku noqdo yaani qof aad iyo aad u yaqaan ma qabto professor shakhsiyan professor jaamacad ma dhigi karo qof aan engineering gaari ma dhisi karo guri ma dhisi karo qof aan darawalay gaari ma wadi karo laakiin acmaashi ilaahay nagu waajibiyay oo ma baahanin ba inaynu ku takhasusno waa un qof xaqaas isaga tukan salaadeena waxa la rabaa marka mu'miniinta salaadooda ilaahay baa ka hadlay wuxuu yiri qad aflaha almu'minuuna alladheena hum fi salaatihim khaashi'uun fiiri waxay rabtaa qalbiga in la ilaaliyo salaadu وقوموا لله قانتين بالله له waxay rabtaa xarakaadka in laga ilaaliyo waxay rabtaa sujuudi laana salaadi waxa dhaxdhacaya quraan waa wax ku fadhi badnaatay quraan baa dhaxdhacaya quraankuna waxa weeye waxa ugu fadhi badan ee adduunka ilaahay na siiyay way ducadii baa dhaxdhacaysa iyadana oo iyadana adoogtii fadhiga ay leedahay waxa la inaga rabaa marka maadaama amalkan iyo amalka kaliya hayno ee daa'imka inaan iska saxno qofka salaadiisa hadduu fudaydsado oo uu danayn waayo waxay cadaynaysaa qofka iimaankiisu inuu sajiro oo wixii islaamnimada lagu soo galay bacda tawxiid walaalayaal waxaan u baahanahay inaynu salaadeena maca jamaacatina ku tukanno qofkii rag iyo qofkii dumaraba dumarku kolkay xaafadaha wada joogaan isla tukadaan baa sunnah
أو في عن واجب أيوكما لكن رجع رجاشة بالغين تي أحرارك وحواجب كوعين جماعة تجان وأنا كفد بدنتها صلاة جماعات وصلاة كلشان يلا ما تدرجين الأرض النبي عليه الصلاة والسلام سيدو كسفي وحاول حرنا كوضه الرئية أو باهن هاي أنا برانو صلاة إني نيو باهن تهاي إنه باهن تهاي ما ركتي تكبير تاسي واجب تهاي كيفيو إني كيفية صلاة ولا وحال الربعين إنه برانو صلاة واجبات كذا وح واجب كاب يوح كابر يوح واجب كأن الله تما دلقا ربو يوح سنة ضعف كرتو لكن هذا هذا صلاة ضيد السوري والحاجة أنت جدته أتكلمتو سيدي إلهي والله ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر حال يدي وناقوا معها إن المشرق والمغرب وجدتان أنصاري يقولك يهود بلا له ليه حاجة أي حاجة وجدتان وأنتم كنا نعضهان وحويان رمين الله بكون رئيس إنك مركب حلا نجرب صلاة على الصحيحة بكون رئيس اللي تبديه برشية مراعاة يا الله ربنا إلهينا بيد الله وقام مع النبي الله إسماعيل وحلا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة فيري وأمر جريب على يدي أهل كيسة صلاة وأمر جريين تكذان وأمر جري أهل كيسة إن صلاة إلاليان وحفظيان وقت هذا إلهينا وحولها حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين صلاة حفظية إلالية وقت هذا إلالية شروط هذا إلالية مبدلات كذا إلالية صنيال كذا إلالية مباحات كذا إلالية نية هذا إلالية حدي مركز عادي تكنية وقلبك أقول حسابك لكجرو أو أما تقف لما رميصة أما تجنع سياي كجرت أما حولها جاء فوصنا يسوع وبرامج كلا كجرتو صلاة هذا مقبول معها وصواص كوي ما كره لكن دائما وحضر كيس الشيطان كحكم حسوسين يا صلاة مركز قشوا وحيابه حسابه وكاقل تناوب حتى كحسوسي أو مال هذا صلاة فيري وهو شقيسنا يا أسوي وجددي سو ما إنه وحكو تريه وجددي سو صلاة هذا كام مشغولين هيا أرنت هزم برون هيسو لكن فضلك صلاة هي لما يساوي لما ينسى مركز صلاة قشوا إن لقوا طارئون عجلت كله أو وحكلا أتكشى كيسو أو مال كلا أدادو وغفلة وهلمان ويان غفلتنا وحاد وكا صلاة اللفتة الله بديو النبي عليه الصلاة والسلام كل آذو عصلاضو أو رفاضو أرحنا يا بلال بورنجري بلال ونو كلمين نو آذان أن تكني مركب وحيالي شواغشتها وحيالي مروجدها وحيابي عريسيها يا سهر النبي عليه الصلاة والسلام بو يا كجفو قجري إننا وحين نرى صلاة بابا إلى تاجي تذكرني وونا عمدا كسو جاري كل تبرقه وحي كلام كده على الدنيا يعني وحنا تبع كريه وحسو وحين هي وما يستو يا وحورنا يا هذا صلاة ما بيلا تاج في عمل كبار الحقيرية واستهزاء وكلمة كفر ويان كلمة اللي قالوا بيجوي قف كلام لها شقيسنا الدنيا لكن وحلا الدنيا وحول الله ما بين الدنيا ده كل عنده بدك تنين الدنيا ده كوضته بدحنا الدنيا ده كوضته إنها الدنيا ده كوضته أفر لا تكسر واحد كفكرنا يدوم نايته هذا الزمن كاجا يريد يسوق واجبات إلهي كسارنا أدوكتهاي إنا والنقضاء هرت هذه دكتاتو الدنيا ونقضاء تقف الله فرسنا الدنيا كلاش كيسنا يسوق كل قصة حنا ساعات كل حنا سونا يد كل كسوة توسنا كسوة توس يسوق هي الدنيا أقل من القليل وعاشقها أذل من الدليل بإمام الشافعي الدنيا واحد كستاير بيضا كسير قفك ضلباء الراديانا روح كستو دليا سكد اللي يسب waxayna tusinayna waxa weey adduunyadu hadii la bixiyo way dhamaanaysaa fiir hadaad bixin weydana waa lagu caayo oo bakayl baa lagu oran inayna macna lahayn taas ay inoo cadaynaysa acmaasha ilaahay walaalayaal waxay noo fududeynayaan mar walba ilaahay tan jirku noo jira acmaasha inna akramakum inda allahi atqakum ilaahay baa ka soo sheekay ya ayuha an-nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم آيات أصلا دقيقة قف بقفك كتقوى بدن يهي وقدو يهي إلهي أنا دردارك النبي عليه الصلاة والسلام وحج الوداع والشيغي عربي عجمي كما فضل بالنبي دردارك يسي قدام بي مالها ساكمي لها قفك إذن كفي عن وحويان بيقول قفك إلهي حديد كلاله مركب مر والبا وحال الربا إنا كوبنا إنه أمدنا إنه كل إسنه islaamnimaduna waxa ka bilaabanaysa acmaasha ilaahi saddex qofka kolkii laga helo muslim khaalis uu noqon haya laakiin mu'min ma noqon hayo i'tiqaadu bil qalbi inuu qalbiga ilaahi ka i'tiqaadiyo al-a'maalu bil jawaarih jawaarihda oo yaani macnaha uu ka amal falo at-talaffuz bi kalaam Allah inuu tawxiidka ku dhawaaqo kala duu sidaa yiraahdo waajibaad baa fuulaya waajibaadka fuulayana
waxa ugu horeeya salaada ugu horeysa qofka waxa ugu horeeya la oranayo waxa weeye aslim thumma salli weeyaan ee lagu la khidaabayo hadduu xanuunsan yahayna laga tagi maayo hadduu masaafiriga laga tagi laakiin soonka dad xanuunsanta cuurdaar baad u haysataa xajku qofkii maalin buu ku waajibaa marka camalka culayskiisa garanayna waana camalka ambiyada ilaahay oo dhan waajibka ku ah marka ayna fududeysan insha Allah salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh